madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa gaaray magaalada Istanbul ee cariga dalka Turkiga halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga waxa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo soo dhaweeyay oo ka hor yimid xubnihii golaha wasiirada ee safarka goolxaarka ku joogay dalka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo qadar nasasho oo ku qaatay qolka nasashada ee mudaarka magaalada Istanbul ee cariga dalka Turkiga waxa madaxweynaha loo galbeeyay dhinaca hotelka u gaarka ee ay ku degeen isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaana xusid mudan in madaxweynaha Soomaaliland ay galbeeyeen gaadiid aad u tiro badan oo kamid ah gaadiidka loogu talagalay soo dhaweynta madaxda adduunka ee dalkaasi Turkiga ku soo degaysa waxaana ka dhex muuqday ciidamada u gaarka sugidda amniga madaxda dunida ee kusoo degaysa dalka Turkiga kuwaasi oo si aad madaxweynaha Soomaaliland u hareer socday intaasi kadib wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaa waxa uu ka hadlay sida loo soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee la kulmi doona madaxweynaha madaxweyne oo dawladda Turkiga ay soo dhaweysay waxa kale oo madaxweynuhu maanta leeyahay qada ay xukuumaddu siinayso kadibna barnaamijkiisii siyaasadeed iyo dhaqaale iyo horumar oo halkan u yimid ayaa u bilaami doona barnaamijkuna wuxuu ka dhacayaa magaalada Ankara ee ah magaalada madaxda dalkan Turkiga madaxweynaha wafdigiisa iyo waxa la filayaa in ay shirar kala gedisan u qorshaysan inay yeeshaan oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga wasiirka khaarijiga wasiirka tamarta iyo petrolka iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda dalkan Turkiga inta madaxweynuhu joogo waxa kale oo qorshaysan in ay wada arkaan howlaha horumarka dalka ka socda si dawladda Turkiga markaa ay kaalin weyn uga qaadato barnaamijka xagga iskaashiga wafdiga madaxweynaha Soomaaliland waxa xubno ka ah marwada koobaad ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Aamine Waris Sheekh Maxamed Jirde wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xissi Cali Xaaji Xasan wasiirka dib u dejinta xagla toosiyay iyo safiirka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiyay dalka Itoobiya Aadan Nuux Doole halka dhinaca kale ay ku sugnaayeen magaalada Istanbul ee cariga dalka Turkiga wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda waxbarashada iyo macdanta iyo biyaha madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu boqoli doonaa magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga halkaasi oo ay ka dhici doonaan kulamada ugu muhiimsan ee uu la yeelanayo madaxda dalka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo madaxweynihii ugu horeeyay ee ka socda Soomaaliland ee taga dalka Turkiga magaalada Istanbul